iyo in maanta ay bilow u tahay ama ay ku cusub tahay ama ay tiradoodu haba yaraatee iyana intay taalkooda qarankan iyo dadkan iyo ummadan wax ku darsaday waxaan jeclahay hadalka badin maayo in marka hore ay la daawataan oo aan ku soo dhaweeyo video aad u kooban oo 2 daqiiqo ah waxa uu ka hadlayaa TED iyo waxay tahay Chris Anderson waxaan jeclahay qolada farsamadu inay toos inoogu sii daayaan muuqaalka. From Kenya to Colombia, from Iraq to Korea, in slums, in schools, in prisons, and in theatres, every day people gather at TEDx events around the world to hear the best ideas bubbling up in their communities. Today, you are part of a global conversation about our shared future. So what is this TEDx? TEDx is an initiative of the TED Conference, a non-profit devoted to ideas worth spreading. We grant free licenses to allow TED-like events to spread globally. This event today is based on the TED Conference format and ideals, but is independently organized by your local community. So please make sure to thank the team of volunteers who worked so hard on today's event. It's their ideas, dedication and time that made it all possible. It's they who booked all the speakers, and the views you'll hear today are of course those of those speakers, not necessarily of TEDs. But we hope their talks spark an exciting conversation among you. This is a day for curiosity and for skepticism, for openness and for critical thinking, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you'll take out. And now, on with the show. مقلسان السلام عليكم إلهي سكله هدي مانتا أي مرلباد إنه صورة الشيء إنه تدك قبصومه هل كديك سنة كان قول إيجابني ما وحترتم يا ضل كان يدت كان كسوجيهين
xaalado badan oo kala duwan ayaanu soo maray maanta dadkeenu waxay mutaysteen in hal abuur lagu soo bandhigo madal caalamiya madashaas oo ah TEDx Hargeysa qabanqaabinta TEDx Hargeysa waxay qaadataa waqti badan tacab badan iyo dad badan muddo 26 week iyo 2 cisho ayaanu ku jirnay qabanqaabada TEDx Hargeysa tan baa kamid ah caqabado badanna way naga hor yimaadeen laakiin caqabad kasta waxaan u arkaynay inay tahay 10 waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo gacan ku lahayd in ay madashan sida quruxda badan aad u aragtaan inay muuqato ama gacan ku lahaa aan ka bilaabo bahda organizerska teamka organizerska qabanqaabiyaasha Zuhur Yasin Fathiya Abdullah Hakim Libah Joy Abdi Umar Hamza Umar iyo dhammaan dhalinyarada nala shaqeynaysa waliba sida mutadawwicnimada ah hablaha iyo inamada isdirayaasha ah nala shaqeynay muddada 6 bilood madashan waxaad ka dhageysan doontaan ahamiyadda ay leedahay fikraddu ama awoodda ay leedahay fikraddu waliba marka fikradda la fuliyo adiga niyadda ku haya inaad isbeddel keentid madashan waxaa laga hadli doonaa awoodaha ay leedahay fikraduhu iyo sida aad wax ka bedeli kartaa haddii ay niyadaadu tahay inaad isbeddel keentid may maqlaysaan okay Okay, so today is the 2nd of February 2018. This is our second TEDx Hargeysa event. Our previous event has had positive reviews from the community, and we're hoping that this one has a greater reach and a bigger impact. The theme for this year is Gul iyo Gobonimo, and it reflects perfectly the state that our people and our country are at. We've been through a lot, and today our people deserve a platform where they can share their ideas, their innovative ideas with the world. Organizing TEDx Hargeysa takes a lot of time, a lot of effort, and a lot of people. I want to thank each and every individual who has had a hand in bringing this amazing event to light. Thank you. aad iyo aad bay mahadsantahay Khadija laga bilaabay imika aynu galla markaa dadka aynu maanta halkan u fadhino inala wadaagaya qof walba wixii lagu tuhmayay ee aqoon ama khibrad u lahaa qofkan idin soo wado shakhsiyan markaan ku darsado dambiga raaci maayo haddaan idhaahdo aabihii baanu saaxiib ahay isagoo yar malaha qof weyn baa la moodayaa gurgurad barada waxaan sidaa u sii weyneen jira ayaan aqoonta inaanu aabihiis barano shakhsiyan aan xaqiiqatan ilaahay ugu sumay dadka intaan ka aqaanay wuxuu ahaa Somaliland nabadeedii iyo horumarkeedii shakhsiyan intaan ka aqaanay wax ku darsaday ee wax lahaa waa aabihii inankiisi waa maanta halkayna la fadhiya waxa uu yidhi waxaad noqon kartaa hodan adiga oon hanti iyo hayn midna haysan qofkaasi waxa uu ka bilaabay shaqaale waxa uu maanta marayaa loo shaqeeye qofkaasi hadduu markuu halkan soo istaago waxa uu ka tallaabsaday dabcan cid baa caawinaysay caqabado aad u tiro badan oo da'yarta maanta xakame iyo xadhko iyo dabarba ku haya oo u diida inay fikiraan hormaraan wax kastana dhaqaalo ku xidha waxa uu aaminay ilaahayna ka rajeynaya inuu ku sii sugo qarankan iyo hibada dhex taalla iyo sidoo kale hantida qarankani leeyahay inuu fikirkiisa iyo maskaxdiisa ku daro waxa uu wax ka bartay jaamacadda KCA magaalada Nairobi dalka Kenya waxa uu bartay IT-ga ama tiknoolajiyadda casriga qofkan inta soo wada
وسامي عبد قبس أساسها iyo mulkiilaha Sami online market ama habka online ka wax lagu gudbiyo Sami uu iga dheeriyo laakiin aabina saaxiibana salaamatiin dhamaantiin gacalayaal tiknoolajiyadu waa nidaam casri ah adduunweynahana isku wada xidhay kana dhigay dad qaarada kala fogfog iyo wadamo kala fogfog jooga inay u wada xiriiraan sidii dad tuulo wada jooga qalabkaas ama tiknoolajiga waxa kamid ah moobilada laptobyada softwareska iyo internetka oo ah qaybta ugu horeysa dhamaanteen waxaan sidanaa moobilo kuwii ugu dambeeyay amaba sanadadan soo baxay ama sanadkii hore sida iPhone X iPhone 7 Plus iyo iPhone 8 Plus Note 8 iyo wixii la mid ah aniga oo ah mulkiilaha iyo maamulaha guud ahna aasaasaha suuqa Sami online waxaan ugu jecelahay moobilka Samsung Galaxy S3 kaasoo ah ka kaliyaata qalab la sheegayo marka qalab la sheegayo electroniga garabka soo qabtay marka laga imaado garab qabashada Ilaahay iyo sidoo kale ducada waalidkay waa maanta halka aan taaganahay isoo gaarsiiyeen waxaan jiray dhowr iyo 10 jir markii shaqadii aan ka shaqeynayay galab kamid ah anoo shaqadii ku jira 2014 bishii 8aad uu ii wacay maamulihii shaqada aan ka shaqeynayay una ii sheegay in shaqadii ama mashaariicdii xafiiska taale intii oogaan ka shaqeynayay ay dhamaatay ay tahay oo ama shaqadii laga fasaxayo aan haystana muddo usbuuc kaliya taa sidii aan shaqadaas aan kaga gabagabaysan lahaa ama aan kaga tagi lahaa kadib waxa dhacday fikir iyo calooliyo ayay galay iyo murugo anoo ka fikiraya lacagtii aan ku biirin lahaa amaba aan siin jiray qoyskayga kadib waxa dhacday waxa jira hal qof oo ah la taliyahayga khaaska waxa weeyaan ayeedii hooyo waa qofka koowaad ee la taliya garabkaygana gala markastoon murugaysanahay ayeeyo markii aan u tagay maalinkii labaad waxaan u sheegay ayeeyo xaalad bay la soo gudboonaatay shaqadiina waxa la igu yiri waa laga fasaxay hal usbuucna wad haysataa mana garanaayo qof qaraabakiil igu geeyay shaqooyinka mana garanahayn qof garabkayga ah oo la igu ixtiraamayo shaqo weynahayo la oranayo shirkadahaas markaad uu ku geeyo shaqo ku siinaya maxaan sameeyaa ma garanayaan ku yiri waqti badan kumay qaadan ayeeyo inay iga jawaab celiso cabashadan watay waxa ii sheegtay ayeeyo wiilkaygiyo hal mid ma sameyn kartaa ma sameyn karaysaa waan ogahay inaanay lacag aanad haysanin laakiin ma sameyn kartaa hal wax lacag ka soo geliso si lacag aanay kaaga baxay oo u dhiganta hodan noqo hanti la'aan waxaan yidhi ayeeyo talo waxaas muxuu noqon doonaa laakiin waan ka fikirayaa hal usbuuc ayaan ka fikirayay halkii usbuuc sidaan uga fikiraya waxaa igu soo dhacday inaan facebooka aan page ka dhex samaysto aan ku iibiyo alaabaha mustacmalka ah ee electroniga kadib page-ka markaan samaystay waxaan damcay inaan tago meheradaha suuqa ku yaala ee iibiya alaabaha electroniga ee mustacmalka laakiin meherad kasta markaan u tago waxa ii sheegtaa ama ay igu yiraahdaan damiinna ma wadatid xafiisna ma lihid midda kale aragtideedu qaabkana maanta u eegahan heer caalamigan aan u eegahay uma neekeen markaas waxa ii sheegaan inaanay alaabtooda igu aamini karin ana waxaan yidhi tugba taagtii buu rogmadaayay hal mid samee waxaad ku tidhaahdaa sawiraanta alaabtu keliya taan ka qaado kadib sawiraantiina aan ku soo boosti gareeyo Facebook page-ka markaan soo dhigo page-ka dadka iga soo iibsada idinka toos aan idinku keeno waxay yiraahdeen hadday sidaa tahay waa yahay sidaa samee waan sameyn jiray sidii ilaahay baa mahad uga sugnaatay alaabtiisii baa laga iibsanay qof kasto iga iibsadana meheradii alaabtu taale ayaan geynay iyaga oo ma kadib intaa kadib aan ka helay mushqaayad yar kadib anoo sidaa ku jira ayaa waxa dhacday
shaqadii way weynaatay elektaroonigii keliya ta ahaa ee dadku arkayeen amaba aan meesha ku iibinayay waxaa iga soo raacay amaba ay ii soo jiiday inaan macaamiil badan helo macaamiishaas waxa ugu badnaa waa haween mar kastana haweenka garab baan u hayaa ayayna koobay ka hayd dhammaantoodna macaamiishada iyagaa ugu badan waxaa dhacday macaamiil ka mida macaamiisheeda oo haweenay ah ayaa igu tidhi walaal miyaad samaysid alaabtan elektarooniga oo keliyaata miyaad ka daysid meesho alaabaha dumarka miyaad soo gelisid iyo carruurta iyo ragga maad ku soo kordhisid kadib taladii baan qaatay taladii markaan qaatay ayaa waxaan soo geliyey alaab dumarku leeyihiin oo dumarku u khaasa laakiin qof kasta oo arka alaabtaasi wixii odhanayay amaba uu iga toocsanayay iga xaraabaysanayay war maanta maxaad bilowday waxaanad bilowday ayagu lahaa alaabtii dhowr usbuuc ay ku jirtay meeshii ugu dambeyn waa la iibsaday taasi waxay horseeday inaan helo macaamiil badan halkaasna ay iga bilaabanto inaan alaab kaste aan soo geliyo beejkaas macaamiil aad u badan baan ku helay suuqina si fiican buu socday online-ka ahaa shaqadaasoo dhan waxaan ku qabanayay waxay ahayd dabaq ka mid ah dabaqyada magaalada ku yaala oo wiil aan saaxiib nahay ku jiray jaranjaro ka mid ah jaranjarooyinka dabaqaas ayaan fadhiisan jiray kadib jaranjaradaas markaan fadhiisan jiray wiilkii saaxiibka ahayn waxaan ka codsaday inuu internetkiisa ii geliyo moobilkayga estreyga ahaa iganala hadlo amaba ula hadlo waashmaanka meesha ilaalinaya si aanu meeshaasaan fadhiyo aanu iga eriyo aanu ii moodin amaba qof meesha ka tirsan uu garanaya inaanan ahayn laakiin aanu meesha iga eriyo wiilkii saaxiibka ahayn uu igala hadlay qof kastoo jaranjaradaa igu imaada waan soo dejin jiray xafiiskii saaxiibka intaan keeno ayaan ku odhan jiray xafiiska waa kan laakiin alaabtiina waad iska qaadan kartaan alaabtiina waan idinka sawiraya maadaama aan xafiiska lahayn saaxiibkiina aan kula heshiiyey macmiil kastoo imaado inuu meesha yaro fadhiisto laakiin markaan alaabta ka sawiro uu iska noqdo sidii baan muddo samaynayay ilaahay baa mahad uga sugnaatay waxaan sidaa ku socdo oon jaranjaradaa fadhiisto waxaa dhacday wiilka aan saaxiibka ahayn inay dhaqaala darro amaba uu iskaga bixin kari waayo xafiiskii inuu la kulmo dhowr bilood ayaa meeshii uu ku lacagteedii lagu yeesho xafiiskii kadib waxaa lagu yihi ka bax alaabtana waad kaga tegaysaa ilaa aad lacagta keenaysa wiilkaan saaxiibkan ahayn sidii buu kaga tegay xafiiskii internetkina waa baktiisay ila waaba xafiis xidhane ninka fooqa ka mas-uulka ah oon is arki jirna oon is indhagarannay ayaan ka codsaday war walaal waad aragtay inaan halkan xoogaa fadhiisan jira halkan baan bariiskayga ka dhacsan hal midii samee oo xafiiskii saaxiibaday aan ku shaqaysto ay ogolow wuxuu igu yidhi waan ku ogolaanayaa laakiin shuruuddaasi waxay tahay inaad albaabka hoosta ka soo xidhatid wixii xafiiskaa ka maqnaadana adigaa lagugu leeyahay inkastay shuruuddu adkayd maadaama ay tahay inaan albaabka hoosta ka soo xidho macaamiishayda inta ugu badanna ay tahay haween haddana waan ogolaaday waxaan ku yidhi waayahay waan sameynayaa sidii ayaan sameeyey hoostan ka xidhan jiray xafiiska waxaa dhacday sidan ugu shaqaysanayay maalin maalmaha ka mid ah ayaa haweeney ayaa ii timid albaabkan furi jiray markuu qof haweeney ahi uu yimaado maadaama uu sharciga diinteennu aanu banaynayn laba qof ajnabi inay qol ku wada jiraan kadib waxaan goostay inaan albaabkii ballaqo laakiin nasiib darro waxaa igu soo beegmay ninkii meesha mas-uulka ka ahaa markuu macmiilkii iga baxay uu arkayna albaabkiioo furan ayaa intuu yimid buu yidhi saamiyo ballantii waad ka soo bixi weyday iskaga soo bax xafiiska furayaashana keen laakiin waan u cudur daartay waxaan ku yidhi hawshaas laba daro mid dooray noqotay laakiin tii adiga ahayn baan doortay tii kale sharciga diinta ka soo horjeeday waan iska diiday wuxuu yidhi ma sidaas ahaa mar dambe yaanan kugu arkin inay dhacdo albaabkaasoo furan haddii kale dabaddaa tahay waayahay baan ku yidhi sidii baan kaga qaatay furayaashii mar kale waxaa dhacday maalin ka mid ah haddana maalmaha ayaa macaamiil badan iyagii ila joogaan oo albaabkuna furan yahay 7 macmiil meelahaas oo albaabkuna ii furan yahay
oo qaarna wax iibinayaan qaarna iibsanayeen ayuu sidii si leeg u meeshii soo koray dabaqii uu arkay albaabkii oo furan laakiin maalintaas sidii horoo kale ima odhanin sidii macaamiishoo kale macaamiishuna waxay moodayeen qof macaamiisha ka mid ah uu soo ag fadhiistay kadib markii macaamiishii iga wada baxday ayuu wuxuu yidhi waa niya husaamiyow macaamiishan haddaad haysatid dabadeed waxaan ku yidhi waa niyaho haddaan kiraysto amaan iska bixin kari waayaa maadaama aan $0.5 waxa ugu badan $2 waxa aan faa'iidayo wuxuu igu yidhi bisha koowaad free baan kaaga dhigayaa laakiin bisha labaad lacagtii waad bixinaysaa waxaan ku yidhi waayahay kadib waxaa dhacday habeenkii inaan gurigeygii la tegay farxad ah inaan maanta xafiisan kiraystay iskii aan hoosta ka soo xidhan jiray uu berri toolanay ii ballaqnaan doono subaxii habeenkii si farxadlaan ku seexday isla habeennimadii anoo seexanin ka hor waxay soo wacay wiilashii lahaa alaabta xafiiska taala ee markii hore lacagta loogaga xanibay waxay ii sheegeen alaabtooda inay soo doonanayaan berri toole lacagtina ay bixin doonaan waxaan ka codsaday inay ii daayaan alaabtooda muddo bil ah maadaama aanan haysan alaab aan xafiiskana kiraystay waxay yidhaahdeen maya alaabteeda waan qaadanaynaa subaxii xafiiskayga waxaan ku soo kallahay xafiiskayga oo madhan waxaan dhex fadhiistay xafiiska oo madhan kadib maa niyad xumaanin intan meesha ka soo baxay tugbataagtii buu rogmadaabay tidhaahdaa soomaalidu ayaa bakhaar ka mida bakhaarada ku xiga xafiiska intan tegey ayaan ka codsaday inuu isiiyo kartoon si aan ugu fadhiisto aan uga dhigto waxaan ku fadhiisto boodhka iskaga celiyo maalintaas may jirin maalin aan ka niyad wanaagsanaa aanan kaga kalsoonaa waxaan wado inay meel gaadhayaan kadib sidaa waxaan ugu fadhiyey muddo laakiin waxay gashay inaan aado labada shirkadood ee deymaha dhaqaaleed bixiya ee dalka ku yaala labadoodii markaan aaday labadoodii waxay igu jawaabeen waxyaabaha iga baahan yihiin maadaama lacagtay ay doonayaan kursiga miiskan uga baahnaya kombyuutarka aanay iibin karayn kadib waxaan ku yidhi ma sidaasaa haabay yidhaahdeen naga raali noqo waan iskaga soo baxay maa niyad jabin waxaan yidhi tii ilaahay baa meesha taalla si ha isku dayin inaad niyaddu kaa dhimato amaba aad samaysid wax ka mid a waxa khayrkaa samaynayaan oo inaad dalkaaga ka tahriibtid amaba meel kale amaba waxaan aad wadid aad ka niyad jabtid waxaan $1 iyo $0.5 iyo waxaan faa'iidaayo oo mushqaayad ahayd aan isku korkordhiyo muddo ku siman 5 bilood iyo badh ayaa waxaan ku fadhiyey kartoonkaas qof kastoo ka ii imaada oo macaamiisheeda ka mid ahayna wuxuu arki jiray xafiis kuraas iyo miisi taalo markuu yidhaahdo alaabtii aaway waxaan u sheegi jiray alaabtii hore way cascaseed oo alaab cas bay ahayd laakiin xafiisku alaab cadcad baa loo soo iibinayaa dhammaanteed kadib waxaan sidaa idhaahdo aan saa uga sheekeeyaba $0.5 wixii aan helayaan isku ururiyo waxaa dhacday inaan miis iyo kursi aan dhigto xafiiskii miiskii iyo kursigaan xafiiska dhiganayay xafiiska wuxuu noqday kursi iyo miis wuxuu noqday xafiis u eg waa xafiis u eg oo imika lagu soo hiran karo kadib waxaa dhacday inaan alaabaha ama waxyaabahan samaynayno waxaa ka mid tahay amaba aan ku iibinayno meesha waxa weeyaan online caqabado badan way iska jiraan maadaama ay caqabado jiraan oon qof kastoo aan idhaahno alaabtaas ama waxyaabahaasaan idiin iibinaynaa aan waxaan hore u arkin wuxuu nagu sheegi jiraa amaba odhan jiray anigo dalkiini ma joogtaan maxaa soo samaynaysaa anigu laakiin waxaan ugu jawaabaynay waxay ahayd inaan waxaan qof kastoo waxaan bilaabay uu maalin uu meel sare gaadhay kuwa meel gaadhayna aanu maalintaa dalkoodii aanay waxaasi ka jirin maanta waxaanu leenahay shaqaale hargeysa waxaa ka shaqeeya shaqaale ku dhow 7 qof
oy ka mid yihiin 3 ka mid ay halkaa ka muuqdaan waxaan leenahay sidoo kale in muqdisho waxaan ku leenahay xafiis hargeysa waxaan ku leenahay xafiis garowana xafiis dhammaantoodna waxaan ka shaqeeyaa aan u xulshay ama aan u xulanay inay karti leeyihiin aanan uga soo jeedinay dadka kale si ay meeshan aanu taaganahay oo kale ama aanay niyaddu uga dhiman ay ku fikiraan inay maanta meel fiican oo rajo leh ay ku nool yihiin dalkooduna rajo weyn ka soo muuqato waxaan leenahay gawaadhi alaabta qaada oo u kala geysa dadka alaabaha iibsada oo delivery-ga lagu qaado waxaanu isla sanadkii hore ee 2017 aan iibinay alaab ku dhow 16,655 alaabood ay shalay toona maraysa alaabtan iibinay sanadkii hore kaliya taa adduunyada sideeduba dal kasta wuxuu leeyahay cid uu ku faano qaarad kastaana waxay leedahay cid ay ku faanto China marka laga hadlayo ama Aasiya waxay ku faanaan Alibaba eBay Amazon waxa ku faanaa reer galbeed oo idil guud ahaan dalkeena iyo shacabkeenu waxaan rajaynayaa inuu ku faano oo yiraahdaan waxaan leenahay Saami online dadiyowga dunida joogaana ay nagu amaanana yiraahdaan dalkaas iyo dadkaas waxay leeyihiin Saami online oo wayna la dhigayaan waad mahadsantihiin dhammaantiin weli kawma joogno shaqaalihii loo shaqeeyey soo ma way mar kale xusuusin waxa iga ah cidda social media iyo tabinta tooska ka shaqeynaysa inamada kamarada inta mooyaane cid kale looma ogola inay wax sawirto iyo inay wax duubto fadlan aynu taawla socon way iga xusuusin waayahay horaan idinku sheegayo 3 fac baan isaga jaan qaadayaa oo kala gudbayaa waxaan jeclahay inay la socotaan balu fiirsada waa arday barta caafimaadka waxa uu ka bartaa qaybta caafimaadka guud iyo qalliinka ee jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama waa daayarta inta badan u heelan inay sugaan in qarankan iyo shacabkan helaan caafimaad dhameystiran qof kasta oo reer Soomaaliland uu xaq u helo waxa uu xaq u leeyahay caafimaad iyo adeegyada caafimaad oo dhameystiran waxa uu in badan waqtigiisa ku qaataa oo ololeynta arrimaha dhalinyarta iyo caafimaadka intaaba waxa dheer waxa sidoo kale mararka qaar la shaqeeyaa waxyaha dawladda ee magaalada Boorama gaar ahaan wasaaradda waxbarashada oo uu mararka qaar ku tabaruco noloshiisu waxay ka bilaabantay tabaruc waxa uu ku wadaa tabaruc waxa uu hiigsanayaa tabaruc waxa uu ku socdaa tabaruc waxa uu inagula joogaa tabaruc waxaan nasiib u helay inaan ka mid noqdo dadka tabaruca isku barteen iyo bandhiga caalamiga ee buugaagta Hargeysa ila soo dhaweeyay Xasan Cali Daawud عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhamaantiin waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan maadaama ay tahay maalin jimcaana ha lagu saliyo rasuulkeeni maxamed calayhi salaatu wasalaam halkaa waxaa idinka muuqda sawir waxaan rajaynayaa in 3 qof aniga marka laga reebo 2 qof ee kale ay halkan ku sugan yihiin oo ay hadda ku jiraan hawl mutadawacnimo waxaanu halkaa kaga jirnay hawl kale oo qaranku leeyahay waxay ahayd markii la hagaajinayay buugtii madbacadeena ama maktabadeena qaranka ee Silaya National Library marka waxaanu maalin kasta jimcaha iskugu iman jirnay si aan buugta u masaxno u gelino khaanadaha runtii ma yahayn tani kaliya ka shaqeeyay laakiin waxay ahayd mid aan ilaa aan gurigeygii kala soo toosay oo kala soo kacay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in halganka ay qayb ka ahayd hooyaday oo 1993 ka hor intaanan dhalanba ay bilowday barnaamij ama campaign ay ugu magac dartay Go to School barnaamijkaasi waxay wada bilaabeen iyadiyo dumar kale wada shaqeynayeen waxaana ay sidoo kale ku xigsiiyeen
barnaamij kale oo loo yaqaanay women's clubka oo ay ku tababarayeen inay habluhu ay samayn karayaan xirfado baran karayaan sida ay ka mid tahay karinta iyo dawaarka waxaan u joogay 2010kii oon anigoo form 2 ah ka qayb galay inaan hooyaday la sameeyo assessment ay kaga ururinaysay magaalada Gabiley oo halkii aanu deganayn ahayd dadka indhoolayaasha iyo dhagoolayaasha oo runtii ay u suuroobi weyday intii ay gobolka ku noolaayeen inay waxbarasho helaan waxaan u socdaalnay magaalada Boorama waxaanu bilownay school waxay ugu magac dartay hooyo iskuulkii ay Gabiley ka abuurtay iftiinka iyo rajada Hope and Light Disability School in Gabiley iskuulkaasi maanta uu shaqeeyaa waxa dhigta ardayda dhagoolayaasha ee dhigata waxa ay marayaan kalaaskii 6aad waxa iskuulkaasi laga bilaabay guri kamida hall weyn oo ayidii ay lahayd ba ilaa imka lagu dhigtaa wax international support ay heleen ma jiraan laakiin iskuulkii ilaa maanta uu shaqeeyaa ardayduna waxay marayaan fasalkii 6aad marka gurigan ka soo kacay ee hooyada iyo family-gaygu wuxuu ahaa guri mutadawacnimo laakiin aniga hobigaygu wuxuu ahaa dhakhtarnimo inaan mar walba noqdo halkan waxa idinka muuqdaa sidii aan ku helay caafimaadka runtii inaan noqdo caafimaad ama aan dhakhtar noqdo waxay ahayd mid aan aad iyo aad u jeclaa waxaan dalbaday jaamacad ku taala Qaahira University jaamacadaasi runtii waan la aqbali waayay haddana waxaan dalbaday jaamacadda University of Hargeysa inaan medicine ka apply gareeyo waxaan ku tartanay 544 arday kabacdina waxaan ka mid noqon waayay dadkii ku guuleystay waxay mar kale hooyaygu la talisay inaan u socdaalo Amuud waxaan iloobayaa oon halkaa ku istaagayaa inaan meelahan ka soo shaqeeyay ee aan mutadawacnimada ka geystay ay ugu horeysay xarinta dhaqanka ee Hargeysa International Book Fair waan waqti fiican ku qaatay waxa kale oo mutadawacnimo ka noqday teamka maanta halka dhalinyarta ka shaqeynaya oo ugu horeeyaan Somaliland Life Makers oo runtii iyagu 6 sano u dambeeyay wadankan wax ku wada ka qabanayay aan ku noqdo dhakhtarnimadeedii waxaan Amuud 900 arday oo nahayn waxaan ku guuleystay inaan dhakhtarnimadii helo saddexda sano ugu horeysa marka laga tago sanadka freshman-ka waxa la bartaa waxbarashada basic science-ka saddexdii sano intii lagu guda jiray kaliya uun kuma aan mashquulin wax dhigashadii iyo kalaaskii aan tagaynay laakiin waxaan sidoo kale haddana mutadawwic ka noqday dhakhtarka loo yaqaano Alaale Hospital oo sidoo kale loo yaqaano National Boorama Fistula Hospital isbitaalkaas waxa iskugu imaada dumar aad u tiro badan oo laga soo kala ururiyay goobaha Soomaali degto oo dhan oo soo doonta qaliimo campaign ah oo nooca isku furanka campaign-ka isku furanka dumarka ku dhaca halka waxaanu ka qaban jirnay inaanu u tagno kabacdi waraysi ka qaadno u diyaarino qaliinka marka dambana haday noo suuro gasho qaliinka la galno kabacdina maalmaha waxaanu hooyooyinka waraysanayno waxyaabaha naxdinta leen maqli jirnay waxa kamid ah inay hooyadu ku umushay meel aanu dhakhtar joogin kabacdina oo ilmihii madaxiyo kaliya soo baxay kabacdina ay weyday cid ka soo saarta jirka intii kale ku hadhay in badan ay socdaalayeen si ay u helaan cid ka umulisa ama inta kale u harsan ay ka caawiyaan maalintaas baan dareemay in ay wax badan caafimaadkeenu caawimo badan u baahan yahay waxa noo dhamaatay 3 sano aniska waxaan bilaabay qaybtii tababarkii gacanta ee aanu sida caadiga bukaanada u arki lahayn si aanu u dhakhtarnimadii bukaanadii maalin walba aanu la kulanno maalin walba 7 barka subaxnimo dhakhtarkaanu tagnaa kolba qayb baanu ku qoranahay mar qaybta qaliinka mar qaybta xumada mar qaybta haweenkii dhalaanka mar qaybta carruurta marka waxa nasiib u yeeshay inaan ka bilaabo qaybtii maternity-ga oo qaybtii haweenka iyo dhalmada runtii ku arkay caadi ahaan maalin walba waxa routinkeyga kamid ah in bukaankaan aragno